conversation wada hadal between u dhaxeeya boy wiil and girl iyo gabar. Conversation wada hadal between u dhaxeeya boy and wiil and girl iyo gabar. Okay, boy wuxuu leeyahay good morning subax wanaagsan. Good morning subax wanaagsan. My queen boqoradeyda. My queen boqoradeyda. Girl waxay dhahday good morning to subax lamida. Good morning to sidoo kale subax wanaagsan. My king boqorkeyga. My king boqorkeyga. How are you today? Maanta sidee tahay? How are you today? Maanta sidee tahay? Okay, boy wuxuu leeyahay great aad baan u fiicanahay. Ereyga great waxaa loo isticmaalaa markii xaaladaada boqolkiiba boqol ay wanaagsan tahay adeegsan kartaa I am very fine. I am very good markaa dhigto soo kaleeto. So great waxaa weeyaan aad baan u fiicanahay. I really wuxuu dhahay I anigu really dhabtii missed waxaan u xiisay your voice codkaaga. I really dhabtii missed waxaan u xiisay your voice codkaaga. Okay, saan filaayo dadkan waa dad ayaga ku wada hadlaayo telefoonka ama mobile phone-ka ku wada hadlaayo ku wada sheekeysanayo oo haddana waa dad haasaabo ka dhexeeyo is-shukaansanayo oo arrimo jecel ay ka dhexeeyaan inay yihiin ay u muuqataa. Let's continue and see wadno. Okay, boy wuxuu dhahay great aad baan u fiicanahay. I really dhabtii missed waan u xiisay your voice codkaaga. Girl maxay dhahday if haddii you adiga missed aad u xiistay my voice codkayga why sabab aad didn't you aad adiga call me aad ii soo wici waysay. If you missed haddaa u xiistay my voice codkayga why sabab didn't you aad adigu call me aad ii soo wici waysay. Boy wuxuu leeyahay sorry raali noqo dear qaaliyey ama sorry dear qaali raali noqo. I anigu came waa aan imaaday home guriga late waqti dambe ayaan imaaday and iyo I was not feeling well fiicnaanna maanan dareemeynin yacni waan xanuunsanaa ama waan caajisnaa. Sorry raali noqo dear qaali. I anigu came waxaan imaaday home guriga late waqti dambe and iyo I was not feeling well fiicnaan maanan dareemeynin yacni waan xanuunsanaa laga yaabaa inuu iska yara caajisnaa. Okay, girl waxay leedahay what maxaa did you aad adigu do samaysay then markaasi kadib. What did you do then? Maxaa samaysay kadib? Maxaa samaysay markaa guriga aad imaatay adoo fiicnaan dareemeynin. Okay, boy wuxuu leeyahay I anigu fell asleep waan seexday. Hurda i qabatay yacni hurda ayaan ku dhacayba. I fell asleep waan seexday. Okay, girl waxay dhahday I aniga was waiting for you. I was waiting for you. Adiga ayaan ku sugayay and you slept waadna iska seexatay. I was waiting for you. Adiga ayaan ku sugayay. I was waiting for you. Adiga ayaan ku sugayay and iyo you slept waad iska seexatay. Boy wuxuu dhahay I am anigu really dhabtii very sorry aad ayaan oga xumahay. I am anigu really dhabtii very sorry aad ayaan oga xumahay. It won't happen again. Mar kale ma dhaceyso. It won't happen again. It won't happen again. Mar kale ma dhaceyso. Won't waxaa laga soo gaabiyey it will not happen. It will not happen again. Marka waxaan leenahay it won't waa la soo gaabiyey waa short form. It won't happen again. Mar kale ma dhaceyso. Okay, girl maxay dhahday no problem dib ma lahan. No problem dib ma lahan. When goorma are you adiga going to work shaqada aadeysaa. When are you going to work goorma ayaad shaqada aadeysaa. Okay, boy wiilkii wuxuu leeyahay I anigu woke up waxaan soo kacay some minutes ago daqiiqado ka hor. I anigu woke up waxaan soo kacay some minutes ago daqiiqado ka hor. I am anigu preparing myself waan isdiyaarinayaa. I am preparing myself waan isdiyaarinayaa. Okay, girl maxay dhahday okay waayahay dear qaali we will meet waxaan kulmi doonaa on Saturday Axadi. Okay, waayahay dear qaali we will meet waxaan kulmi doonaa on Saturday Sabtidii meeshaan Axad ayaan dhahay sorry. Okay, waayahay dear qaali we will meet waxaan kulmi doonaa on
Saturday sabtigi ayaan kulmi doonaa